dowladda Iiraan ayaa si rasmi ah u bilowday aas qaran oo soconaya muddo toddobaad ah kaas oo loo sameeyay hogaamiyihii ugu sarreeyay dalka Ayatollah Ali Khamenei. Munaasabadda oo ka bilaabatay magaalada Tehran ayaa noqotay dhacdo si weyn u soo jeedatay indhaha caalamka iyadoo malaayiin qof ay iskugu soo baxeen wadooyinka iyo goobaha looga talagalay baroordiiqa si ay u soogotiyaan hogaamiyahoodii dalka ugu awoodda badnaa muddo ka badan 30 sano. Munaasabadda aaska waxaa ka qayb galaya madax sare oo ka tirsan dowladda Iiraan, saraakiil ciidan, culimo, siyaasiyiin iyo wafdiye ka kala socdo dalal kala duwan. Dowladda ayaa sheegtay in baroordiiqu ay socon doonto muddo toddobaad ah iyadoo lagu qaban doono munaasabado diimeed iyo kuwa qaran magaalooyin kala duwan. Ammaanka ayaa sidoo kale si weyn loo adkeeyay si loo sugo badqabka shacabka martida ka qayb galaysa munaasabadda. Ayatollah Ali Khamenei wuxuu ahaa shakhsi ugu awoodda badan Iiraan tan iyo markii uu xilka hogaamiyaha sare qabtay. Intii uu xilka qabtay wuxuu door muuqda ku lahaa siyaasadda guud, ciidamada, barnaamijka nukleerka iyo siyaasadda arrimaha dibadda. Taageerayaashiisu waxa ay ku tilmaamaan hogaamiye difaacay madax bannaanida dalka isla markaana xoojiyay awoodda Iiraan ee gobolka. Dhacdadan ayaa sidoo kale dhalisay falcelin caalami ah. Dalal iyo ururo kala duwan ayaa u diray fariimo tacsiye ah halka qaar kale ay wafdiyo u direen magaalada Tehran si ay ugu qayb galaan aaska qaran ee loo sameeyay Ayatollah Ali Khamenei ma aha oo kaliya munaasabad lagu maamuusayo hogaamiyaha muddada dheer talada hayay, balse sidoo kale waa dhacdo siyaasadeed oo xasaasi ah taas oo laga yaabo inay calaamad u noqoto bilowga marxalad cusub oo taariikhda Iiraan ah taas oo laga yaabo inay calaamad u noqoto bilowga marxalad cusub oo taariikhda Iiraan ah iyadoo saameynteeda laga dareemi karo gudaha dalka iyo guud ahaan bariga dhexe.